reer muqdisho dadka jooga ay cabanayaan ayuu ku saabsan yahay waxay ka cabanayaan shirkadda la yiraahdo Hormuud ayaa reer muqdisho ka cabanaya waxaan ogsoonahay Hormuud markeedii hore shirkaddii barakaad la dhihi jiray way barakaad wixii gaaro waan ognahay iyo dhici iyo foolxumadii lagu sameeyay oo dadka xoog badan ku sameeyeen ummadda reer muqdishaan leenahay intanada joogta muqdisho meel lagu ma soo wada koobi karo reer muqdisho intanada joogta ayaa maanta meelayna waan cabanaynaa oo barakaadan ka cabanaynaa Hormuud wixii lagu sameeyay barakaad dadkii qof dagaalama iyo qof ilaahay u barya iyo qof ka naxa iyo maxaa tira iyo qof ku cayrooba iyo qof maxaa tiraada si uu ku helay wixiisii waqti dambe ummaddu waxba isugu jirta waa reer muqdisho waxa maanta cabanaya dadkii barakaad jeclaa oo Hormuud jeclaa weeyaan dadkii sida gaarka ula damqanaya weey dadkii Axmed Nuur Cali Jimcaale oo madaxda u ahaa oo sida gaarka u jeclaa way dadkaas baa waxa ku dhacay wax aysan maleeyeen Hormuud waxa barakaad waxa dhacay kufaar iyo wixii ay u adeegayay ayaa dhacay maanta waxa laga cabanaya oo Hormuud looga cabanaya inay dadkii masaakiinta ahaa oo Soomaaliyeed oo reer muqdisho inay dhacday ayadii oo dhacayso dhacnin ku hayso ayay maaragtay ii sheeg ayaa looga cabanaya waxaan uga jeednaa warqadaas aan hayo halkaas jid baa marki kara kaamirad marki kartaa jidkii dawladeed wakaas jidkii ummaddu ay bixisay dawladihii ay bixiyeen wakaas waad u jeedaan jidkii Jeneraal Daawud ka baxaya way jidkaas waa jidkii dawladii bixisay jidka halkaas mara oo u jeedaan dhul dad leeyahay inuu ku tumanayo ilaa meesha ugu dambeeya inta ugu dambeeya oo maray waa dhul dad leeyahay waxa jidkaas oo marayo oo la marsiinayo oo xooga lagu marsiinayo oo maxaa tiraa lacagta lagu marsiinayo oo qof hal boos ku leh lagu dhacayo hantidiisa oo maxaa tiraahdaa ummadii Soomaaliyeed oo faqriga ahayd oo maanta si nolosheedu u liidato ay Hormuud ku dhacayso jidkaas weey waxa laga cabanaya oo reer muqdisho ka cabanaya waa jidkaas weey waxa la isku dayay dadkii cuquusha u ahaa dadkii hantiilayaasha u ahaa iyo sheeg xoolaha lahaa oo hantiilayaasha ahaa dhulkaas lahaa wax kasta waxa la isku dayay in la yiraahdo war naga hadla war nala arka dhulkanaga war hanaga marinina war ilaahiina ka baqa si kasta dadkaas wax la hadla waa la waay cid la hadasha oo waxaad leedahay iyo wax malihid tiraa waa la waay waxaan uga jeednaa haddii Hormuud ay leedahay Hormuud halkaan ay leedahay dukumentiga dhulku leeyahay inay dadka la hadasho oo dukumentiga la soo baxdo oo dhahaan annaga kula jidkaan annaga meeshan kula jid noo yahay oo dukumentigaana kuleenahay ummadda kale la yiraahdo keensada waxaad ku leedihiin ayay ahayd in la yiraahdo ma lagu la hadlaayo askari iyo qori baa taagan waxa taagan qofkii taga asagoo dhulkiisii oo la dhisanayo arko oo baldoosar la mariyo maxaa tiraa sheeba la marinayo qofkii ka cabta askari baa soo oriyay ama waa lagu dilaya ama ka tag dhulkaagii waxaan hadda shirka jaraad u haynaa waxaan kaamirooyinka adduunka u tusaynaa reer muqdisho Hormuud mas'uuliyiinta u joogta waa gaaray warkaanu jawaabna kama aysan bixin dadka la dhacayo masaakiinta waa gaaray kelmadda ugu dambaysa dadkan waxay tahay inuu kaamirada ka arko Axmed Nuur Cali Jimcaale ummadda Soomaaliyeed oo hantiilaha u yahay oo shiiqa u yahay oo maxaa tiraahdaa ii sheeg asaga magaciisu runtii qofkii maqlaaba oo ku farxayo inuu arko shirkadda asagu oo mas'uuliyadda oo in badan ku leeyahay waxa dadkii shacabka lagu sameeynayo waxaan codsanaynaa arintaas warkaas markuu ku soo gaaro kaamirada saacad dhowaad arki doontaaye inaad wax ka qabato oo aad dadka dulumka lagu wada ka joojiso haddii aan dadkaas la dulmayna dadkii ummadda la hadli lahayd oo inaan dadka la dulmayn ku qanci lahayd inaad u soo dirto taasi waa midaas tan kale arrinkaanu dawladda ma ka qarinayno waa gaaray ma la qarinaayo wasiirka arrimaha gudaha ayaa istaagay inuu joojiyo isku dayay markuu isku dayay inuu joojiyo arrinkan waxa weeye hal joojiyo amar u baxshay amarkaas markuu bixiyay waxa tagay ninka la yiraahdo ishaag gudoomiyaha duqa gobolka Banaadir ayaa ta gobernatooraha iyo duqa magaalada gobolka Banaadir ayaa tagay buungaab ninka la yiraahdo tagay amar wuxuu ku baxshay qofna la hadli maayo
han dhulkana hal wado ka ku socto baaldoosarka Soomaaliyeed wasiirka arrimaha gudaha amar ka baxshay mungaab oo gudoomiyihii gobolka duqa magaalada ahna waxa weeye amar uu ka dawaxsho shaqada socoto ummadii wax la hadla marka lama hayo marka anu warka waxaan ku gabagabeynayaa khiyaara iiga dambeey doonta dadka madluumiinta oo la dulmaa ka hadli doona insha Allah waxaan ku gabagabeynaynaa haddee nin la dhaco sida uu yeela isaga u taala laakiin meesha ugu dambayso warku taagan yahay Axmed Nuur Cali Jabcaale warkaan inuu gaaro way dawlad ka dadkan le kala celinaysaa ma jirto dadkii saasan leena anu ka leeximayno haddii gudoomiyii ninkii ahaa duqa magaalada uu ka adkaaday ninka la yiraahdo sheegeen wasiirka arrimaha gudaha oo ka adkaaday asagu waa inaan nidaam jirin saasan anagu aanu sheegayna ma qarinayno Axmed Nuur marka haddii dadka ii sheeg madax asaga ku xigtaato ama ilaa darajo hoose haadeen dadkii waa xalli